بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب ضيو من الدنيا كجوجتا waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah ama warbixin gaar ah oo aan ku sameyn doono maxay yihiin 10 gantaal ee dawladda wadanka Iran ay haysato kuwaas oo Mareykanka iyo xoogagga gumeystuhu iyo guud ahaan wadamada khaliijka wadna go'o ku beeray gantaaladan iyo waxay kala yihiin iyo gantaalada waliba Iran ku dhaarato 10 gantaal ee ugu horeeya waxay yihiin iyo masaafada kiiloomitir ay jaraan iyo sida ay muhalligiin u yihiin oo ay guud ahaanba meesha ku dhacaan ay dukum daakum ugu ayanu barnaamijkan iyo warbixintan gaarka ku soo qaadan doona Iran gantaaladaasi waxaad moodaa si wanaagsan inay uga seexanayso waana gantaalada dawladda wadanka Iran ay sida qeyrul caadiyeed uga tashanayso waana waxa kalsoonida la yaab kale ku dhaliyay sidaas daraadeed 10 gantaal ee ugu sareeya iyo magacyadooda iyo masaafooyinka ay gaari karaan ayaan warbixintan gaarka ku soo qaadanayna laakiin kahor intaan warbixintan gelin in gantaaladan iyo tayadood iyo waxtarkood iyo dhibtood iyo dheeftood intaan gelin waxaan ka codsanayaa inaad kanaalkeena subscribe siiso hadii ay tahay markii kugu horeysay aadna daawato saaxiibadaadna gaarsiiso hadii aad nala joogteen aad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaaya mar kale kanaalka subscribe si la wadaag saaxiibadaada oo meel walba aad nagala socoto mar walba aragtidaada waa inoo muhiim soo dhawaada waaga iyadoo dogsoontiin in xiisada dawladda wadanka Mareykanka iyo Iran ay cirkas ku soo shareerayso oo duulaanka gardarada xambaarsan ee Mareykanka iyo xoogagga gumeystuhu ay si qeyrul caadiya dawladda wadanka Iran uga hayaan waliba iyadoo xitaa miiska wada hadalka fadhido bishii Juun 2025 si daran dawladda wadanka Iran loo weeraray inkastoo khubaradu ay leeyihiin wixii Iran lagu sameeyay 12 maalin dagaalkii soconayay waliba maalintii koobaad ilaa labaad way adag tahay dawlad walba darbaxadaas oo kale inay ka soo kabato haddana Iran way lagu guuleysan waayay wixii la rabay in laga fuliyo marka maxaa taasi suura galiyay maxay ahaayeen gantaaladii sharafta iyo qiyamka dawladda Iran sare u qaaday maxay ahaayeen gantaaladii wadna kurkurka iyo walwalka ku beeray cid walba oo isu diyaarinaysay ama ku farxsanaan lahayd in Iran markaas dhinaceeda dhulka la dhigo marka gantaaladan aan soo sheegi doona qaarkood weli lama isticmaalinba waxa loo badan yahay weerarka gardarada xambaarsan hadda Trump iyo Netanyahu ay wadaan in si weyn looga isticmaali doono marka ku soo dhawaada warbixintii waataane gantaalada iyo magacyadoodana ku soo dhawaada mar kale aan idin xasuusiyo like iyo share iyo subscribe soo dhawaada waa hagaag gantaalku ugu horeeya oo ay dawladda wadanka Iran sida weyn ugu tashanayso waxa la yiraahdaa Fatah 2 ayaa la yiraahdaa waa gantaal hypersonic waana gantaalka waliba waxa la yiraahdaa kan uga halista badan waxa la yiraahdaa Fatah 2 ee ayay darajadiisu tahay macnaha ee waxa laga wadaa waa kan ugu sareeya uguna degdegsiimada badan waxaana kamid yahay gantaalkan inkastoo aan wax badan laga tuurin laakiin dagaalkii 12 maalin aha dhowr goobood oo kooban oo ay Beersheba iyo meel magaalada Tel Aviv kamid tahay ayaa la wariyay in lagu garacay laakiin waliba hataa ka marka lagu garacay darajadiisu waxa la wariyay inay ahayd gantaalkan faracyo badan ayuu leeyahay A E B E C E D ayuu leeyahay laakiin ee wali lama isticmaalin ayaa la leeyahay wana gantaal hypersonic wana gantaal 2000 masaafadiisu waxa la wariyay inay gaarayso in ka badan 2000 ilaa 3000 oo kiiloomitir inay gaarayso ayaa la wariyay marka waxa la wariyay in uu yahay gantaalku ay ku siixdaan madaxda ugu sareysa dawladda wadanka Iran buuraleyda wadanka Iran ayuuna hurda waliba gantaalkan magaalooyin dhan oo dhulka hoostiisa ku yaal oo la yiraahdo Madiinatu Sawaariikh ayaaba loo dhisay ayaa lagu leeyahay waa hagaag marka waa gantaalkaas mana aha mid qosla masaafadiisuna waa mid aad u sareyso tusaale ahaan 2000 oo kiiloomitir waxa uu ku gaari karaa in ka yar 10 daqiiqo wax ka yar ayuu ku gaari karaa marka waxaana la garan karta sida uu degdegsiimo u baahan yahay waxyeeladiisu waxa la wariyay inay tahay meeshu ka dhaco degmo dhan inuu baabi'in karo ayaa la wariyay dhul gariirka iyo hugunka iyo halaaga gantaalkaas uu sitana waxa la leeyahay waa mid intiisa laag waaga gantaalka labaad ee dawladda wadanka Iran sida baan ay ugu tashanayso sijiil ayaa la yiraahdaa yani eragan sijiil quraanka kariimka ayuu ku jira xagee kaga jira miyaad isweydiinaysaa آخر سورة اللي يراد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مركب suuradaas ay ku jiraan marka min sijilin ayana kamid ah sijil marka asal ahaan ergan wax laga keenay marka shimbiro markii nimankii kacbada weeraray ee murudiyaashu watay ayuu ilaahay shimbiro dhagaxaan wato ayuu ku soo daadiyay marka halkaas magaciisa laga keenay masaafadiisu waxay gaaraysaa ilaa 2000 oo kiiloomitir ayay gaaraysaa hadda la socdo dhulka muslimiinta laga haysto ee Falastiin
iyo Iran waxa isku jiraan 1770 kilomitir waa halka ugu badan ay isku jiraan marka waxaana garaaci kara marka 2000 oo kilomitir macnaheedu waxay ka mid tahay Urdun iyo wadamada Khaliijka iyo waxaan oo dhan cadadugaha ayuu ka dhigi kara ayaa la leeyahay marka isaguna sidoo kale waxa la wariyaa meesha lagu tuuro inay tahay rajo aan looga qabin gantaaladan aan sheegi doono dhamaantood waa hypersonic mana ah kuwa lagu hortagi karo waaga isaguna marka 2000 kilomitir ayuu gaaraa waxaana Israa'iil ku gaari kara sida la leeyahay dhowr daqiiqadood ilaa 8 iyo 9 daqiiqo wax ka yar ayuu ku gaari karaa waana mid ka mid ah gantaalada sida weyn ay Iran ugu tashanayso waxa looga naanaysaa MRBM ayaa looga naanaysaa gantaalkii halaaga ahaa gantaalka saddexaad oo isagu ilaa dhowr saddex ka kooban laakiin kii ugu dambeeyay hadda la soo saaray waxa la yiraahdaa Koromashar 4 ayaa la yiraahdaa laakiin magaciisa kalena waxa la yiraahdaa qayb kale ayuu leeyahay Khaybar ayaa la yiraahdaa gantaalkan isagu waxa uu masaafadiisu gaari karaa 2000 oo kilomitir degmooyin oo dhan ayaana la gurinaya cadadugaha inuu ka dhigi karo ilaa hadda gantaalkan in la isticmaalay dagaalka 12 maalin dawladda Iran si fiican uma sheegin laakiin kan musiibad ah oo hadda laga koobiyay ee darajadiisuna ee tahay waa mid ka la yiraahdo Koromashar 4 ayaa la yiraahdaa marka Khaybar laakiin hal iyo laba ayaa laga isticmaalay muddadii 12 maalin ah dagaalku soconay oo waliba xataa qudhuda tijaabo ah waaga gantaalkaas markii sugan wakaa 2000 oo kilomitir iyo in ka badan ayuu gaaraa halaagiisan aad ayuu u badan yahay mana ku dhacaan xogaga gumeystay Mareykanka gantaalkaas inay ka hortagaan maxaa yeelay waba gantaal guuxiisa 5 iyo 6 marka dheeray way dhammaan gantaalada hadda ay soo sheegeen waaga gantaalka afraad waxa la yiraahdaa Sumar ayaa la yiraahdaa waana gantaal plastic ah masaafadiisu waxay gaaraysaa isaguna kana ka sii daran 2000 oo kilomitir ilaa iyo 3000 oo kilomitir ayuu gaarayaa sida la leeyahay waana mid kamid ah gantaalada sida geerul caadiga looga kalsoo yahay burbur baan ayuu geysan karaa isaguna oo waliba ka daran kuwii hore gantaaladii hore aan soo sheegnay burburkii ay geystaan sidaas daraadeed marka isaguna waxa uu kamid yahay gantaalada foolaadka ah ee wajiga dawladda Iran beli doona sida la leeyahay waana waliba cruise oo waxa la leeyahay xataa gantaaladan hadda soo sheegay qaarkood madaxyo tiro badan ayay leeyihiin tusaale ahaan Khaybar kan iyo Sijiil iyo Fataha iyo hal gantaal way laakiin waxay noqon karaa mararka qaar 5-6 gantaal oo isku jira oo dhamaantood dadnaa bersoniga laakiin kan Somar kan la yiraahdo waa gantaal cruise ah ama gantaalada guuxda ka dharay weeye laakiin wuxuu gaari karaa isaguna 2000 ilaa 3000 oo kilomitir ayuu gaari karaa waxa looga talagalay mandaqada Carabta oo dhan inuu cadadugaha mariyo hadii loo baahdo marka waa mid kamid isaguna gantaalada sida weyn ay ugu walwal qabaan xogaga gumeystaha gantaalka afraad ee dawladda wadanka Iran shanaadan yiraahda sida weyn isugu haleynayso waxa la yiraahdaa Haji Qasim Suleymani ayaa la yiraahdaa waxa looga magac daray ninkii dawladda wadanka Mareykanka ee garoonka Baghdad ku dashay sanadkii 2002 ilaa sanadkii 2020 mana mahadin weerarkaasi dawladda Iran jawaabta Iran waxa la wariyaa 1000 askari oo Amerikaana oo saldhig catiid la yiraahdo halka joogay inay waasheen Haji Qasim Suleymani markii isaguna waa mid kamid ah gantaalada guuxda ka dheeray si baan ayuu wax u burburiyay laakiin masaafadiisu waxay gaaraysaa wax looga talagalay isagu 1400 oo kilomitir ilaa iyo 2000 oo kilomitir intuu u dhaxaysa ayuu gaaray ayaa la leeyahay marka geedkan marka Haji Qasim Suleymani ayaana looga magac daray waana mid kamid ah gantaalada sida weyn ay ugu walwal qabaan xogaga gumeystuhu waa qaar kamid ah gantaaladii waliba tijaabada ku jiray ayuu waxyeeladiis iyo halaaga uu sameyn karo waxa la ogaaday sida la leeyahay dagaalkii 12 maalin dhowr gantaal ayaa waxaan oo dhan laga isticmaalay si loo ogaado tijaabadooda in laga hortagi karo marka lagamana waa laga hortagi waayay gantaalkaas marka isaguna waa noocaas Haji Qasim Suleymani ayaa la yiraahdaa gantaaladan aan soo sheegay dhamaantood mid walba oo kamid ah magaalooyin dhulka hoostiisa looga dhisay ayaa sidii rasta oo kale u dul yaalaan marka waxa la leeyahay midkiiba Iran waxay ka haysataa intii la doono 10000 20000 100000 500000 intaas oo ay ka haystaa ayaa lagu leeyahay waaga gantaalka lixaad sida weyn oo ugu dhaarto dawladda Iran waxa la yiraahdaa isaguna Shahab 3 ayaa isaguna la yiraahdaa waa gantaal kale oo isaguna mucjiso ah waliba kan waxa lagu magacaabaa inuu yahay laf dhabarta dawladda wadanka Iran gantaaladeeda waxa uu gaari karaa 1300 oo kilomitir ilaa 1500 oo kilomitir gantaaladan marka kuwan waxa looga talagalay masaafadooda ka muuqata saldhigyada Mareykanka ee dhammaan gobolka bariga dhexe ku yaala kuwan waxa looga talagalay Israa'iil iyo dhulka xoog ku haysto in lagu fariisiyo marka gantaalkaas marka isaguna waa ka Shahab 3 ayaa la yiraahdaa waa mid mucjiso ah waxa lagu tilmaamay inuu yahay laf dhabartii madaaficda dawladda wadanka Iran marka isaguna waa ka oo 1300 ilaa iyo 1500 oo kilomitir ayuu gaari karaa waa hypersonic isaguna tusaale ahaan
إسرائيل dhulka ay xoog ku haysato oo Iiraan u jirta 1770 kilomitir waxa 1770 kilomitir waxa uu ku gaari karaa baa la leeyahay waa wax 3 daqiiqo 4 daqiiqo yar laakiin gantaanka sida ka muuqata waxa looga talagalay saldhigyada kale iyo meelaha kale dhow ayaa looga talagalay meelaha qaarna dabcan dhulka Israa'iil haysato 1300 kilomitir 1400 yani 1770 halka ugu dambeys ayaa laga hadlaya marka gantaanka isaguna masaafadiisu halkaas ayay tagaysaa gantaalka toddobaad waxa la yiraahdaa qadar 110 ayaa isaguna la yiraahdaa waa mid tahay bersoniga isaguna waa gantaalada guuxooda ka dheeray ayuu ka mid yahay gantaalkan masaafadiisu waxay gaaraysaa 1950 kilomitir ilaa 2000 kilomitir ayay gaaraysaa laakiin masaafada halaaga ah looga talagalay waa 1950 kilomitir weeye isaguna waxa la wariyay inuu yahay mid ka mid ah gantaalada sida waalid ah wax u halaaga inuu yahay wayna adag tahay in laga hortago sida qaar ka mid ah khibradu ay warinayaan waa hagaag Iiraan gantaalada waxay u haystaa baa lagu leeyahay sidii raashinka oo kale ay u haysataa waa hagaag gantaalka toddobaad waxa la yiraahdaa Zulfiqar ayaa isaguna la yiraahdaa waxaan looga naanaysaa marka magaciisa la soo gaabiyo SRMB ayaa isaguna la yiraahdaa gantaalkan masaafadiisu marka laga hadlayo kuwii hore waa uu ka gaaban yahay dabcan waxaan isleeyahay saldhigyada ku yaala ee Mareykanka uu ku leeyahay wadamada ka agdhow Azerbaijan iyo Iraq iyo waxa soo looga talagalay baan u maleynay waxa uu gantaalkani gaari karaa 700 kilomitir ilaa 750 kilomitir ayuuna gaari karaa waxaana lagu beegay sidaan ka arkayo saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Iraq iyo Urdun iyo meelaha dhow uu ku leeyahay ayaa looga talagalay iyo sidoo kale wadamadan kale ee adigu ka agdhow ayaa looga talagalay marka wakaad marka darajadiisu ma qosla ayaa lagu leeyahay laakiin gantaal kale ayaa mar labaad soo laabtay marka oo aad la yaabo doontaan Qasim 1 isaguna ayaa jira gantaalkaas isaguna kii hore aan soo sheegay 2000 ilaa 3000 kilomitir ayuu hayaa kan marka iyaga waxaan iyaga faracyile mid walba 5 iyo 6 iyo 20 farac noocaas oo kale ayaa laga sameeyay Qasim 1 isagu waxa uu gaaray sida la leeyahay 700 kilomitir ilaa 800 kilomitir ayuu isaguna gaaraa ma moodaysaa masaafadooda way gaaban tahay marka kuwii hore loo eego laakiin gantaalka ugu dambeeyay waka ismana maleynaysid sida la leeyahay gantaalka waxa la yiraahdaa Fatah 313 ayaa isaguna la yiraahdaa waa gantaal isaguna hypersoniga kuwa guuxooda ka dhareey weeye isaguna si baan ayuu wax u burburiyay waliba waxa la wariyay gantaalkan waxa looga magac daray gantaalkii qoysaska la yiraahdaa marka halkii waxa uu taabal wali 4 iyo 5 iyo 6 ayuu isagu watay laakiin masaafadiisu waxay gaaraysaa ilaa 500 kilomitir ilaa 1000 kilomitir inta u dhaxaysa ayay gaaraysaa waana gantaalka tobnaad waxa kale jirta gantaale ilaa iyo hadda dawladda waddanka Iiraan aanay daaha ka qaadin laakiin si weyn la isku halaynayo gantaaladani qaarkood waxa la leeyahay waxay xambaari karaan madaxyada hubka nuclear-ka marka bal waan soo eegi doonaa gantaalada dawladda waddanka Mareykanka haysatay iyana mar kale ayaynu eegi doonaa laakiin Iiraan marka aad gantaaladeeda iyo khubaradeeda iyo siday wax u halaagayaan waliba niishaabkooda u sugoyay wala yaabaysa hadda gantaaladan qaarkood oo 700 ilaa 800 kilomitir qaarkood waxa haysta xogaga reer Lebanon ayaa haysta maadaama iyagu ay u dhow yihiin dhulka Falastiin xoog looga haysto 700 iyo 750 kilomitir iyo 800 iyo 50 iyo 8 waxa oo dhan iyaga ayaa haysta waase gantaalaha bersoniga ayaa la leeyahay guuxoodana waa ka dheeraya waa hagaag adadu ma hasantiina waxa idinka baxay aragtidin iyo sida Iiraan u tashatay waa 1979 ayuu dhashay kacaankan 74 sano ayuu jira waxaas oo dhibaato inta maamulku jireen cunaqabateen iyo halaag iyo gardaro iyo cadaab ayaa Iiraan lagu hayay laakiin waxaas oo hormar ah oo barnaamij ayay sameysatay kuwii carbeed calooshu waaweynay caalamul islaami oo kale waxaan oo kale cid sameysatay ma jiro nin tashaday waxa la yiri looma taageero dib intaan kulmo doono nabadgelyo